sidee uur lagu qaadi karaa waqtigeesa ugu wanaagsan ee uur la qaadi karaa run ahaantii uur qaadistu waxa ay ku xiran tahay awoodda Rabbi isaga ayaana garanaya xilliga qofka uurka uu qaadayo sida cilmi baarista lagu sheegay ama lagu ogaaday fursadaha ugu wanaagsan ee uur lagu qaado waa marka ugxaanta la soo daayo ama ay diyaar u tahay in la bacrimiyo haweenka inta badan waxay caadadu ka maqan tahay 28 maalmood maalinta ugxaanta la soo daayo waxay ku aadan tahay kala bartanka oo ah maalinta 14aad shanta maalmood ee ka horeysa fursadda uur qaadistu way jirtaa waxaa jiro cuntooyin badan oo ka saacidi kara gabadha inay uur si sahlan oo ku qaado cuntada nafaqada leh iyo miisaanka caafimaadka leh waxay caawinayaan in jirku u diyaar garoobo uur qaadis nafaqooyinka aad u baahan tahay in aad uur qaadi karto waxa ka mid ah macdanta zingiga folic acidka sida calciumta vitamin C iyo vitamin D nafaqooyinkan waxay badinayaan shahwada waxayna ka dhigayaan mid awood leh sidoo kale haddii ay caadadu saxan tahay waxaad calaamaysataa ama aad meel ku xariiqataa maalinta ugu horeysa ee dhiiga ama caadada kuugu dhacdo kadib maalinta marka laga xisaabiyo kala bartanka ama maalinta ugu dhaxaysa fursadda aad ay u fiican tahay maalintaas maalmaha ka horeeya waxaad dareemi kartaa xoogaa qoyaan nadiif ah oo xagga hoose ka yimaada labada maalmood ee ka dambaysa waxaad dareemi doontaa xoogaa qandha ama heerkulkaada jirkaada aad u sareeyo haddii aad rabtid inaad sii ogaatid xilliga ugu habboon ee aad uur ku yeelan kartid waxaa jira qalabyo kaadida lagu baaro oo meelaha goobaha caafimaadka ama goobaha qalabka caafimaadka lagu iibiyo aad ka soo gadan karto ama aad ka soo iibsan karto kuwaas oo loo yaqaan ovulation predicted kit oo hawshiisu ay tahay xilliga ugxaanta la soo deynayo inuu ku xisaabiyo ayadoo kaadida laga eegayo hormoonada heerarka kala duwan ay marayso kulanka joogtada ah ee lamaanaha wuxuu kordhiyaa fursadaha uur qaadista waxaa muhiim ah in lamaanuhu ay badiyaan kulankooda inta u dhaxaysa labada caado waqtiga ugu habboon ee uur lagu qaado waa xilliga ugxaanta la soo daayo oo ay diyaar u tahay in la bacrimiyo inkastoo habeenka ku kala duwan yihiin ama ay ku kala duwanaan karaan waxaa maalintaas lagu qiyaasaa inay ku aadan tahay maalinta 14aad ee wareega caadada si aad maalintaas u ogaato ama aad u saxdo waa in marka hore ay caadadaada ay tahay mid saxan oo aan qalqal ku jirin muuqaalkan yar wuxuu ka caawinayaa inaad ogaato hababka ugu fudud iyo waxyaabaha ugu fudud ee ka saacidi kara inaad si sahal uur ku qaadi karto fadlan haddii uu ku soo gaaro waxaan ka codsanayaa inaad asxaabtaada la gaarsiiso ama asxaabtaada aad la wadaagto